dad badan oo Yurub jooga ayaa inta badan waxay tagaan wadamada sida Ingiriiska oo kale markay baasaboorka dhalashada wadanka qaataan. Laakiin wax ku tusaya maanta Norway waxa la yiraahdaa rafaad iyo raaxo labadaba way yaalaan. dad badan oo Yurub jooga ayaa inta badan waxay tagaan wadamada sida Ingiriiska oo kale markay baasaboorka dhalashada wadanka qaataan. Laakiin wax ku tusaya maanta Norway waxa la yiraahdaa rafaad iyo raaxo labadaba way yaalaan. rafaad iyo raaxo haddaad doonayso inaad shaqaysato lacag fiican samayso income fiican ku soo galo oo wadamada ugu mushaharka wanaagsan ay ka mid tahay haddaad jeceshahay weeyaan. waxa laga yaabaa dad badan inay ku fikireen inay u guuraan markay baasaboorka weyn dhamaan baasaboorkan wadanka ay joogaan ama Swedishka ama Norwegiga ama yani sida inagu Soomaalida nahay hadba meel baynu u guuraa oo cararnaa ama guur ha noqoto ama deegaan ha noqoto ama shaqo ha noqoto. waxaan nahay dad inta badan guurguura oo jecel inuu ka xiiseeya hebel baa meel tagay dibna aynu soo wada raacno halkaan aynu wada tagno. laakiin shaqo waxaan ku siinayaa hal tabays baan ku siinayaa waliba sida gabdhaha oo kale wadamadan dhinaca maarta waxa la yiraahdaa health care ama qaybta caafimaadka oo wadamada ku mushaharka wanaagsan weeyaan kan make $4,000 ama $3,500 inay bishii ku soo gasho 7 saacadood iyo badh adigoo soo shaqeeyay 7.5 hours aad maanta soo shaqeeyay inay ku soo gasho $3,500 taqriiban adigu qiyaas ahaan oo kale. laakiin qofka raba inuu shaqaysto ee shaqar fiican inuu laba shaqo isku garaacaya wuxuu samayn karaa u yaraan $6,000 iyo bishii samayn karaa ku xisaabtami karaa iyo wixii ka badan ba. laakiin haddaad rabto inaad mushaar fiican ka soo galo asi $3,500 waxa la yiraahdaa wadamada qaaliga ah imika waxaan ku tusay waxay $10 waxay goynaysaa Norway $10 of course waa qaali wadankani laakiin waa meesha laga helo hadda meesha laga helo taladan ku siinay waxa weeyaan Sweden wadankan yani dariska nahay oo kale dariska wadankan Sweden dariska nahay oo kale waxa la yiraahdaa nolosha Sweden iyo Norway waa laba wadan oo Scandinavian isku afa isku dada laakiin noloshooda aad u kala duwan tahay shaqo ahaan income ahaan iyo nolol ahaanba aad u kala duwan tahay. haddaad maanta helayso fursad ka helayso inaad ka shaqaysato xaggan oo waxaad ka samayn kartaa lacag badan laakiin hal shuruud baa ku xidhan hal shuruud ayaa ku xidhan haddaad heli karto weyn dee markaad fursadda helayso inaad hesho waraaqaha lagu shaqeeyo aad ku shaqeynaysid sidee taxpayers aad ku noqonayso dadka cashuur bixinaya ku siinaya aad noqonaysid laakiin hal shuruud baa ku xidhan. shuruuddooda ku xidhan waxa weeyaan inaad tahay single qof single haddaad tahay waxaad samayn kartaa lacag aad u badan baad wadanka samayn kartaa. okay maxay tahay sababtaan u soo qaatay in qofku inuu single yahay cashuurta ugu xidhaya wadanka waxa qaali ka dhigay nolosha imika cuntada adduunyada meel kasta imika waa isku wada mid weeyaan yani inflation iskan iyo ama waxyaalaha imika wadanka adduunyada sixir bararka dunida ku dhacay meel kasta wuu saameeyay maaha Norway kaliya muu saameeyay Norway oo markii hore qaali ahayd ay haddana qaali sii noqotay iyaduna laakiin waxa qaali ka dhigay wadanka qaali ka dhigay nolosha qaali ka dhigay waa guryaha. haddaad helayso qofku helayo guri uu qof qol yar ka kiraysto $3,400 bishii iska bixiyo bishii wuxuu samayn karaa $7,000 $6,000 $4,000 $5,000 haddaad rabto inaad shaqaysato saadaad waa inaad single tahay. haddaanad single ahayn oo qof single ahayn way adagtahay wadanka noloshiisa aad bay u adag tahay way guryaha noloshooda wadankan ee qaaliga taas wayba ku leeyahay shuruud kaaga dhigaya inay tahay wadankani wadamada ugu qaalisan ee la dego marka la degayo kirada guryaha waxa laga yaabaa wadanka hadda quutaan tusaale kaas iyo kale qol kaliya inaad ku hesho $2,000 waa qol kaliya aan fadhi lahayn oo yani hal qol kaliya oo 10 talaabo ah lama kaba yarba isku weera inaad $1,500 ku degtaa laga dhici karta. okay ka war hadda laba qol iyo fadhi degtana iyada maxaad u malaynaysaa markaa yani maxay noqonaysaa inaad mushaharkaaga dhanbo noqdo inuu kirada galo saa daraad bay nolosha. laakiin rafaad iyo raaxo haddaad doonayso inaad shaqaysato lacag fiican samayso income fiican ku soo galo oo wadamada ugu mushaharka wanaagsan ay ka mid tahay haddaad jeceshahay weeyaan. waxa
waxa laga yaabaa dad badan inay ku fikireen inay u guuraan markay baasaboorkooda dhamaan baasaboorkan waddanka ay joogaan ama Swedishka ama Norwegiga ama yani sida inagu Soomaalida nahay hadda meel baynu u guuraa oo cararnaa ama guur ha noqoto ama deegaan ha noqoto ama shaqo ha noqoto waxaan nahay dad inta badan guurguura oo jecel inuu ka xiiseeya hebel baa meel tagay dibna aynu isu wada raacno halkaan aynu wada tagno laakiin waxaan ku siinayaa hal toos baan ku siinayaa waliba sida gabdhaha kale wadamadan dhinaca maarta waxa leedahay health care ama qaybta caafimaadka oo wadamada ugu mushaarka wanaagsan weeyaan kan make $4,000 ama $3,500 inay bishii ku soo gasho 7 saacadood badh adigoo soo shaqeeyay 7.5 hours aad maanta soo shaqeeyay inay ku soo gasho $3,500 taqriiban adigu qiyaas ahaan oo kale laakiin qofka raba inuu shaqeysto ee shaqar fiican inuu laba shaqo isku garaacaya wuxuu samayn karaa u yaraan $6,000 iyo bishii samayn karaa ku xisaabtami karaa iyo wixii ka badan ba كذا ربطينا بشهر في عسكر كاسو قلب السي صدق كل شيء $100 وحنا لو ضمد قالقة إمك وحن كتوسي وحنا $10 حي جويني سنوروي $10 of course هو قالي وطن كريم لكن هو ماشى لقاه حلو حتى ماشى لقاه حلو ثلاثة كوسيني وحويان السويدن وده كان سوي يعني درس كان هاي وكله درس وده كان سويدن درس كان هاي وكله وحنا هذا إن nolosha Sweden iyo Norway waa laba wadan oo Scandinavian isku afa isku dada laakiin noloshooda aad u kala duwan tahay shaqo ahaan income ahaan iyo nolol ahaanba aad u kala duwan tahay haddaad maanta helayso fursad ka helayso inaad ka shaqaysato xaggan oo waxaad ka samayn kartaa lacag badan laakiin hal shuruud baa ku xidhan hal shuruud ayaa ku xidhan haddaad heli karto weyn markaad fursadda helayso inaad hesho waraaqaha lagu shaqeeyo aad ku shaqeynaysid sidee taxpayers aad ku noqonayso dadka cashuur bixinay ku siinayaan aad noqonaysid laakiin hal shuruud baa ku xidhan shuruudooda ku xidhan waxa weeyaan inaad tahay single qof single haddaad tahay waxaad samayn kartaa lacag aad u badan waddanka samayn kartaa okay maxay tahay sababtaan usoo qaatay in qofku inuu single yahay shuruudda ugu xidhaya waddanka waxa qaali ka dhigay nolosha imka cuntada adduunyada meel kasta imka waa isku wada mid weeyaan yacni inflation iskan ama waxyaalaha imka waddanka adduunyada sixir bararka dunida ku dhacay meel kasta buu saameeyay maaha Norway kaliya buu saameeyay Norway iyadoo markii hore qaali ahayd ay haddana qaali sii noqotay iyaduna laakiin waxa qaali ka dhigay waddanka qaali ka dhigay nolosha qaali ka dhigay waa guryaha haddaad helayso qofku helayo guri uu qof qol yar ka kiraysto $400 bishii iska bixiyo bishii wuxuu samayn karaa $7,000 $6,000 $4,000 $5,000 haddaad rabto inaad shaqaysato saadaraad bay ku dhigantahay waa inaad single tahay haddaanad single ahayn oo qof single ahayn way adagtahay waddanka noloshiisa aad bay u adag tahay way guryaha noloshooda waddankan ayaa qaaliya taas wayba kuu leeyahay shuruud kaaga dhigaya inay tahay waddankani waddamada ugu qaalisan ee la dego marka la degayo kirada guryaha waxa laga yaabaa waddanka haddaan ku wadaan tusaale kaas iyo kale qol kaliya inaad ku hesho $200 waa qol kaliya aan fadhi lahayn oo yacni hal qol kaliya oo 10 talaabo ah ama kaba yarba isku weera inaad $500 ku degtaa laga dhici karta okay ka war hadda laba qol iyo fadhi degtana iyada maxaad u malaynaysaa markaa yacni maxay noqonaysaa inaad mushaharkaaga dhanbo noqdo inuu kirada galo saa daraad bay nolosha laakiin dhalinyaro Soomaaliya oo u yaacay wadamo kale u yaacay laakiin aan fahansanayn waddanka wixii caga caafimaadka ama ma sha Allah wadamada ugu fiican dhinaca caafimaadka ka mid yihiin waxbarashadooda waddan Yurub ah waa la mid laakiin waxa kale dadku inta badan kaga cararaan waxa weeyaan waa nolosha qaaliga nolosha waxa keenaya familka marka tahay weenad family marka tahay guriga karaysataa carruurta cuntadiiba iyaduna nolosha kala iska qaaliya taas keentay qaali garowda laakiin ma qaali maaha qofku markuu single yahay lacag badan ma samayn karaa so single ma tahay بدون سنة كشقة Norway مهلسها ما tahay qof heli kara ama dadka loogu talagalay inay helaan waraaqaha lagu shaqeysto ma tahay taa mahelisa ka shaqeysa Norway lacag waad ka dhergeysaa lacag badan waad ka samaynaysaa haddaad single tahay weeyaan haddii kala soo maaha family tahay isla u soo guur I'm telling you golama talinayaan taladan siinay gabdhaha waxa kamid ah
haddaad inan tahay oo maanta rabta inaad ka shaqaysato qaybta caafimaadka masha Allah qaybta waddankan qaybta caafimaadka waxa la yiraahdaa waddan yani waxa la yiraahdaa nurse ama dee caafimaad ka shaqeeya meelaha dadka waaweyn meelaha dadka xanuunsanaya lagu xanaaneeyo meelaha lagu isbitaalada dhakhaatiirta waxa ka shaqeeya gabdhaha Soomaalida masha Allah aad baan ugu amaanayaa inay yihiin lambar 1 yihiin dadka ka shaqeysta ee ka xoogsada ee inay gabdhaha Soomaaliyeed yihiin